Assalaamu calaykum. Intaan mawduucina bilaabin, fadlan muuqaalkan like noo saar. Sababtoo dhiirigelin bay noo noqonaysaa. Kuna soo biir kanaalkeena xog baahiye adigoo subscribe taabanaya. Muuqaal hore waxaan ka soo diyaariyey nebiyada ka soo jeeda reer bani Israa'iil sida loo xisaabiyo. Muuqaalka haddii aadan daawan, qaybta hoose ee commentigan kuu soo dhigayaa markii aad muuqaalkan dhammaysatay kadib daawo. Maanta waxaan xisaabin doonaa nebiyada carabta ah. Maalin dhoweyd su'aal baan idin soo weydiiyey. Waxaan idinku waxaa sheegtaan nebigii carbeed ee ugu horreeyay kumuu ahaa. Jawaabtiina badankiina waxaad tidhaahdeen nebi Ismaaciil. Laakiin taasi sax ma ahan. Nebigii carbeed ee ugu horreeyay wuxuu ahaa nebi Huud. Sababta uu u yahayna anaa idiin sheegi doona. Qaarkiina waxaad doorateen in nebi Maxamed uu ahaa nebigii carbeed ee ugu horreeyay. Laakiin taasi waa iska caddahay. Nebi Maxamed wuxuu ahaa nebigii ugu dambeeyay buu ahaa. Horta su'aal aan isweydiine, Soomaalidu ma Carab baa? Sida awoowayaashan ay noo soo wariyaan, waxay dhahaan Daarood iyo Raxaweyn waa Carab. Waxayna ku abtirsadaan saxaabiga Caqiil ibnu Abi Daalib. Taas naftirkeeda waxay u baahan tahay in mawduuc gooniya laga diyaariyo. Marka anna waan baari doonaa, weliba baaritaan dheer baan samayn doonaa. Haddii aad u baahan tihiin Soomaalidu ma Carab baa mise ma ahan mawduuc ah, ama Soomaalidu meesha ka soo jeedo, haddaad u baahan tihiin commentiga noogu soo qora, waan soo diyaarin doonaa insha Allah. Nebiyada nebi aadan baa ugu horreeyay, waxaana ku xigay nebi Idriis, waxaana ku sii xigay nebi Nuux. Nebi Nuux wiilashiisa mid ka mid waxaa la oran jiray Saam. Saam waxaa ka soo farcamay laba qabiil oo Carbeed oo kala ah Caad iyo Thamuud. Caad waxaa loo diray nebi Huud, Thamuudna waxaa loo diray nebi Saalax. Marka halkaa waxaa ka cad in nebi Caad uu ahaa nebigii ugu horreeyay ee Carbeed uu Ilaahay soo diro. Laakiin waxaan isweydiinaynaa, nebi Ismaaciil maxaa loo dhahaa? Waa nebigii ay carabtu ka soo farcantay. Taasi sax waa noqon kartaa, si kale markii loo eegana sax noqon mayso. Horta carabtu waa labo: carabtii qadiimiga ahayd ee ugu horreysay iyo carabtii dambe. Carabtii dambe nebi Ismaaciil bay ka soo farcameen. Carabta maanta joogto oo dhan nebi Ismaaciil bay ka soo farcameen. Laakiin nebi Ismaaciil carab ka horreysay baa jirtay, sida hadda ka sheekeynaynay qowmu Caad iyo qowmu Thamuud. Labada qowm oo kaliya carab ma ahayn, qowm kale oo saddexaad baa jiray oo waxaa loogu yeeri jiray reer Jurham. Reer Jurham iyo qowmu Thamuud iyo qowmu Caad, saddexdaasi carab bay ahaayeen. Laakiin qowmu Caad waa la halaagay markii nebi Huud ay beeniyeen. Sidoo kale qowmu Thamuudna waa la halaagay markii nebi Saalax ay beeniyeen oo hashii ay dileen. Qowmu Caad iyo qowmu Thamuud intii nebiyada raacday mooyaane oo in yar ahayd, intii kale waa la halaagay. Halkaa waxaa ku soo haray qowmkii saddexaad ee carabta ahaa ee reer Jurham. Haddaba reer Jurham halkee ku dambeeyeen? Reer Jurham way soo farcameen ilaa xilligii nebi Ibraahim la soo gaaray. Nebi Ibraahim laba xaas buu qabay, Saara iyo Haajara. Haajara waxay dhashay nebi Ismaaciil. Nebi Ismaaciil oo yar waa tii nebi Ibraahim tuu kaxeeyey, iyo Haajara oo geeyey Safa iyo Marwa meesha u dhaxaysa. Ilaahayna uu ku amray inuu halkaa dhigo. Waa tii markii dambe nebi Ismaaciil uu lugaha dhulka ku dhuftay, waa tii ay biyaha Samsamka ay meesha ka soo baxeen. Sidaas bay Haajara iyo nebi Ismaaciil biyo ku heleen. Haddaba qabiilkan aan ka sheekaynayno ee reer Jurham ee carabta ah, iyaga dhulkooda abaar baa ka dhacday oo biyay waayeen. Markii dambe koox bay direen oo waxay soo eegayeen meel biyo leh oo ay soo degaan. Haajara iyo wiilkeeda nebi Ismaaciil oo meeshaa jooga. Kooxdii la soo diray waxay ku laabteen tolkooda reer Jurham. Waxay u sheegeen in ay arkeen hooyo iyo ilmaheeda oo meel biyo la fadhiya. Intaa kadib reer Jurham waxay Haajara ka codsadeen in ay meesha la degaan. Iyaduna way soo dhaweysay, laakiin hal shardi bay ku xirtay. Waxay tiri, biyaha sidaa doontaan baa u cabbi kartaan, sidaa doontaanna waa u isticmaali kartaan. Laakiin hal shardi: biyaha lahaanshihiisa idinka ma lihidiin, annagaa iska leh. Reer Jurhamna way oggolaadeen. Waxay dhaheen, haddii aan mar isticmaali karno, maxaa biyaha lahaanshihiisa ku falaynaa? Reer Jurham oo ahaa qabiil Carbeed waxay soo degeen meeshii biyaha Samsamka ahaa laga helay. Intaa kadib waa ay weynaatay
oo Maka ayay noqotay meeshaas. Nebi Ismaaciilna waxa uu ku dhex koray qabiilka reer Jurham. Oday walba oo gabar leh uu ku haminayay inuu gabadhiisa u guursado Nebi Ismaaciil. Waayo Nebi Ismaaciil wuxuu ahaa nin aad iyo aad u akhlaaq fiican, aadna u wanaagsan buu ahaa. Nebi Ismaaciil halkaasuu ku barbaaray. Carabigan waxa uu ka bartay reer Jurham. weliba waxaa la sheegaa inuu carabigii ka sii badiyeyba, oo intii ay iyaga yaqaaneen in ka badan buu ka sii badiyey. halkaas bay ka bilaabmatay carabtii dambe. intaa kadib Nebi Ismaaciil reer Jurham waxa uu ka guursaday gabar. middaa hore uu guursadayna waa tii uu furay. waayo Nebi Ibraahim qisadii waa taqaanaan. Nebi Ibraahim markii uu xaafadda Nebi Ismaaciil imaanayo isagoo ka maqan, ay xaaskiisu joogto, kadibna ay cabanayso, ay dhehayso nolol liitaan ku jirnaa, nolol wanaagsan kuma jirno. marka dambe wuxuu ku leeyahay markuu wiilkayga Nebi Ismaaciil yimaado waxaad ku tiraahdaa albaabka gurigaaga iska fur. Nebi Ismaaciilna markii ay u sheegtay waa uu fahamay inuu aabiis Nebi Ibraahim uu dhahayo xaaskan mid fiican ma ahana iska fur. markii dambe waa tii uu furay, mid kaloo guursaday. haddana Nebi Ibraahim baa maalin soo martiyey gurigii Nebi Ismaaciil isagoo ka maqan, xaaskiisa ay joogto. markaasuu Nebi Ibraahim ku yiraahday xaalkiina ka warama. markaas waxay tiraa khayr baa ku jirnaa, barwaaqo iyo nimcada Ilaahay baa ku jirnaa. markaas wuxuu ku yiraahday markuu wiilkayga Nebi Ismaaciil yimaado waxaad ku tiraahdaa albaabka gurigaaga ha furine, xajiso oo ilaasho. Nebi Ismaaciilna markii loo sheego waa uu gartay in aabiis Nebi Ibraahim uu leeyahay xaaskan ha furine, ilaasho. hadda 3 nebi oo carbeed baan ka soo sheekaynay: Nebi Huud, Nebi Saalax iyo Nebi Ismaaciil. waxaa kaloo jira nebi carbeed oo wuxuu ahaa nebigaasi Nebi Shucayb, waxaan loo diray reer Madyan. sidoo kale nebiyada carbeed waxaa ugu dambeeyey Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa nebigii ugu dambeeyey nebiyada carbeed iyo nebiyada kaleba. nebiyada oo dhan guud ahaan ama carab ha ahaato ama yaysan ahaan, Nebi Maxamed baa ugu dambeeyey nebiyada. marka nebiyada carbeed tiradooda waxa weeye 5 nebi: Nebi Huud, Nebi Saalax, Nebi Ismaaciil, Nebi Shucayb iyo Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. waxaan filayaa in mowduucan aan wax ka faa'iiday. intaas ayuu ku egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.